وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأتك مدحض المغنك حبلها ويهجامين الزوم ماما عرفي مغنيرة صحافة طبعا تاغيرياشا حسبك قبل كالصول iyo dhammaan madaxda xisbiga gobolka iyo degmooyinka Sool waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu ii tahay anigii wafdigan hogaaminayo farxad weyn inaanu maanta ku nimaado gobolka Sool oo aanu shalay ka soo kici jirnay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ujeedo qululaha safarka iyagu qululahayaanu reer Sool shacbiga Sool u soo mahadnaqno taageeradii ay siiyeen xisbiga wadani doorashadii madaxtooyada ee Soomaaliland ka qabsoontay 13 bishii 11 waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gobolka Sool waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa degmada Laascaanood gaar ahaan magaalada Laascaanood xisbigu wuxuu ku qanacsan yahay in codkoodii dhammaan shacbiga reer Sool ay siiyeen in yaroo cawrigafa mooyaane ay kulmiye siiyeen mooyaane ay codkoodii siiyeen wadani baan ku raaxsanahay waxaanu u mahadnaqaynaa degmooyinka waxaanu u mahadnaqaynaa Xudun waxaanu u mahadnaqaynaa Taleex waxaanu u mahadnaqaynaa Kalabayd waxaanu mahadnaqaynaa Yagoori waxaanu mahadnaqaynaa Cadays iyo dhammaan degmooyinka iyo magaalooyinka kale ee gobolka Sool walaalayaal runtii eraya kuma cabiri karo mahadnaqaanu idiin sidno waxaa maskaxdayda weli ku duugan oo ku xasuusan وعسوسيدا ku jirta halgankii ay soo gasheen xilligii lagu jiray ololaha waxa maskaxdayda ku duugan sidii ay soo banaan bixi jirteen iyo niyadjabkii ay ku rideen kulmiye ayaa maskaxdayda weli ku jira marnaba ma ilaawi karno abaalka xisbigu idiin hayo haddaad tihiin reer Sool walaalayaal waxaynu ka warqabnaa in xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ay la galeen oo ay saxeexeen heshiiskii Arboogays waxaynu kaloo ka warqabnaa inay heshiis la galeen Khaatamo iyo kii aan cadeeyay waxaanu ka warqabnaa inaan heshiisyaasi weli la fulin waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadaha kulmiye inay fuliyaan heshiisyada Arboogays Khaatamo iyo Cadays waxaanu qabnaa fulinta heshiisyadaasi inay Somaliland u keeni doonaan guul inay xasilin doonaan ammaanka Somaliland reer Sool marti kuma aha Somaliland waxay ku suntan yihiin taariikhda Somaliland halgan kastoo Somaliland gashay oo ugu horeeyay kii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku xigay kii aynu Ingiriiska gobonimada kaga qaadanay ee Cali Garaad iyo odayaasha kale hogaaminayeen iyo xitaa kii dib u soo noqoshada Somaliland
برعا كدعي كوبيا سقاشكي جراد عبد الغني يا علي خليفة يقول شو كاهاي شعبك غير سومالي لاند لا أنتم سومالي لاند مثلك مالكو قطع والله يلا waxaynu raacay seestool soo sax waxaynu nahay bulsho Soomaaliland oo taariikh isku mid ah leh waxaynu samaysanay 19 kadib dastuurkuna sidiisaba waa heshiis bulsho oo bulsho ku heshiisay waxaana muhiim ah in la ixtiraamo heshiiska bulsho haddii uu burburo kaasi heshiiska bulshaduna wuu burburaya dastuurka ama heshiiska bulshada Soomaaliland waxaa ku xardhan oo ku cad in ganacsigu xor yahay oo aynu qaadanay nidaamka free market la yiraahdo waxaa dastuurku mamnuucay waxa loo yaqaan monopoliga ama cid gaar ah waxa loo xidho waxaad ka warqabtaan in xukuumadda Soomaaliland kulmiye ay u bareereen oo ay jabiyeen qodobka ah in ganacsigu xor yahay monopoliguna xaaraan yahay waxaad ka warqabtaan in xukuumaddii Siilaanya ay diiday in xarkaha badda hoosteeda mare loo yaqaan fiber optic badda la soo mariyo oo laga soo qaaday Djibouti oo berbera la keeno waxay xukuumadda Muuse diiday in xarkaha laga soo qaado Boosaaso oo badda la soo mariyo oo berbera la keeno waxa ka warqabtaan in shirkadda Golis loo diiday inay xarkaha fiber optic soo jiidato oo Soomaaliya ka soo jiidato ama Puntland oo ay keento Somaliland waxa ka warqabtaan in shirkado badani oo daneynayay inay keenaan fiber optic loo diiday shirkadahaas oo ka diiwaan gashan Somaliland waxa ka mid ah shirkadda Dahabshiil waxa ka mid ah shirkadda Telesom waxa ka mid ah shirkadda Golis waxa ka mid ah ganacsato kale oo ay ka mid yihiin Faarax Harbi Company dhammaan shirkadahaasi waa loo diiday waxaana xaaraantinimeeyey xukuumadaha kulmiye in la keeno fiber optic magaalada Berbera oo laga soo qaado badda Djibouti tolo berberi maxay galabsatay يعني Somaliland كم يضحين waxa shirkadda Golis loo diiday inay ka soo qaadato Puntland Boosaaso waxa loo ogolaaday oo kaliya shirkadda Som Cable oo sida ka warqabteen leeyihiin nisi qaawan u taageera xisbiga kulmiye arintani waa dastuur jabin waa sharci jabin waa xalaalayn wax xaraana oo ah monopoly Somaliland lama kala laha shirkaduhu ma kala laha muwaadiniintu ma kala laha Somaliland waa in la wada yeesho waa in xukuumadda Somaliland ay u soo noqotaa dastuurka waa inay u soo noqotaa inay ilaaliso heshiiska bulshada waa inay u soo noqotaa in la xoreeyo ganacsiga waxaan soo jeedinaynaa oo idin weydiinayaa ma xaq baa in shirkadda Golis loo diido inay fiber ka keento Boosaaso waa xaq daro ma xaq baa waa xaq daro ma xaq baa in loo diido Telesom iyo Dahabshiil inay badda soo mariyaan oo ay ka keenaan
jabuuti iyo boosaaso maxaa qabaa in qof oo dhan la siiyaa ma qarannima in berbere loo diido oo badda berbere laga xaaraantinimeeyo in la keeno fiber optic kulmiya wuxuu ku doodi jiray horumarkaan ay ka soo horjeedaan mucaaridku salama horumarkay ka mid tahay in berbere loo diidaa waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa kow iyadoo la ixtiraamayo dastuurka iyo shuruucda somalilan in berbere loo ogolaado in la keeno xadhkaha badda hoostooda mara inagoo bad leh in badda loo diidaa waa xaaraan dastuurkuna mo waxaanu u soo jeedinaynaa oo ay xaq u leeyihiin inay ku dagaalamaan shirkadaha doonaya inay keenaan fiber optica ay ka mid tahay golis ay ka mid tahay telison ay ka mid tahay daawshiil ay ka mid tahay faarax abi company iyo muwaadin kastaaba inuu xaq u leeyahay loona ogolaado in loo diidaana ay sharci darro tahay waxaan doonayaa khudbaddayda inaan dhex geliyo tacsi nin aada ugu weyn somalilan oo ahaa wasiirkii qorshaynta xukuumaddii cudub cali sanyare oo dadkuna aada u wada garanayaan beesha caalamkuna aada u garanayso kana mid ahaa odayaasha xisbiga waddani hadda aqoon-yahanka ka mid ahaa somalilan waxaan ilaahay uga baryayaa oo ku geeriyooday dalka switzerland ilahay waxaan uga baraya inu jannadii ka waraabiyo dembigiisana dhaafo innagana samir iyo iman inaga siiyo dhammaanteed iyo qaranka somalilan walaalayaal ballanqaadkii xisbiga waddani ee xilligii doorashada waxaa ka mid ahaa in biyo macaan la geliyo laascaanood waxaa ka mid ahaa in waddo laamiya isku xidhnaa kala baydh iyo laascaanood la sameeyo waxaa ka mid ahaa in ciidamada qaranka 250 mushaharada loo kordhiyo waxaan rumaysnahay in intaasoo dhan ay ku filan tahay inta uu madaxweyne muuse ku daray miisaaniyaddiisa oo aynu kororsaday 109%. miyaanay saa idin la ahayn miyaanay ku fillayn walaalayaa sicir bararku waa aafo qaran oo saamaysay dhammaan bulshada somalilan si faahfaahsan baan uga hadlay maalmihi dhaweyto laakiin waxaan idin xasuusinayaa oo in xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye ay ku fashilmeen arrintaa wax ka qabashadeeda waxaa ugu dambeeyey muuse oo guddi u saaray guddidii meelay ku dambaysay miyaa garanaysaa waxay dhahan saadkaa u sabab ahaayo saadkii markii la joojiyey inay sicir bararka u sii qaarigeliso bal xalka kale hayaan shacbiga usoo gudbiyaan waxaan idinkaga tegayaa kelimo dardaaran ah kelimadaasi waxa weeye berigii hore ee aan qofku aanay jirin diiwaangelintu muwaadin kasta xaq u lahaa inuu daa codeeyo marka doorasho timaado laakiin maanta nidaamka weynu bedelo waxaynu qofka diiwaan gashan ubaa codaynaya qofka aan isdiiwaangelinin hadduu hargeysa joogo iyo hadduu burca joogo iyo hadduu laascaanood joogo midna ma codaynayo suudaanida halkan ka sheegay yana waa la qabaa tiradiinu dadka ugu tiro badan baa ka mid yihiin somalilan laakiin berigii dhaweyd dadkii ka codeeyey dee laascaanood ama degmada laascaanood ama guud ahaanba degmooyinka aad baa u yaraayeen xaq baa u leedihin kursi kastoo waddankan ina soo doonataa
سيا كلام الشعب إلا كم مدحوينها إلا قوة كان حق بقولي والدومية حسب حق ولادي مدحوينها حق ولادي رئيس البرلمان بحق ولادي دورتي ذا حق ولادي محكمة الصلاة حق ولادي حيالك قال كل مدحوينها مقعاوة مدحوينها شوية كحران لكن ما كي دورشتي معه عدكينا كحران marka waxa soo jeedinaya diiwaangelintii waa la furayaa aanu diyaar garoon hadii la haysto waa qaba inaan caburinta iyo caga jugleynta ku dhismi karin Soomaaliland waxa qaba inaan sharaf ahayn madaxda dhaqanka oo la xirxiro waxaan qabaa in xiritaanka abwaanada uu ka mid yahay abwaan baashi iyo qoraayada iyo suxufiyiinta iyo hablaha iyo dhalinyarada iyo qaybaha kale bulshadu aanay waxba soo kordhin karin Soomaaliland waxay soo kordhin karaan in albaabada loo xidho xuquuqul insaanka iyo xorriyadul qowlka hadii taa loo xidhana Soomaaliland albaabada u xidhmi doonta handara iyo xal sheegay inaan ma dhaweyto marka waxa leenahay wixii la xidhay xorriyadooda loo soo daayo oo horeeyo boqor inta kale aqdarada ku xidhanna xorriyadooda loo soo celiyo aad iyo aad ma santihiin salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh